xasaasi badan baa soo korortay. Arrintaas oo ah in Sharma Boy lagu xiray magaalada Garowe. Arrintaas oo ah in dilkii loo haysto oo geystay ama dilkii uu u geystay gabadhaas oo kamid ahayd dadkii saarnaa gaarigii ama dadkii kamid ahayd gawaarida saarnaa dadkaas oo kala dhibaato badan. Marka waxaa la soo warinayaa in hadir xabsiga uu dhaxyaala xabsiga dhexe la galiyay sababtu tahay in la baarayo ama dilkaas inuu u geystay si kas ah ama inuu dilkaas u geystay si kama ah. marka waxaa arrintaas baaristeeda leh ama baarista waxaa qaabilsan dhanka ciidamada sababtoo ah wax walba waa ayakii shaqadooda tahay. marka arrintaasna waa arrin wallaahi aad iyo aad culays fara badan ku saameynayso fanaanka Sharma Boy ama noloshiisa ha noqoto ama taageerayaashiisa ha noqoto ama Soomaali weyn ha noqoto si walba ha noqoto. waa fanaankan arrintan waxay noqonaysaa arrin aad iyo aad u saameyn badan oo arrin dhankiisa saameyn fara badan ku leh. marka waxaan arkay dad fara badan oo dhaha arrintan waxaa ka dambeeyay ama arrintan lug ku leh Daahir Calisow iyo Shiino Cule iyo dad fara badan sheegayay. marka arrintan laakiin arrintaas iyo arrintan isma lahan sababtoo tahay arrintan waa arrin oo isaga oo gacantiisa oo gaariga ku waday oo arrintan waa arrin isaga gacantiisa ay sabab ugu noqotay in ay dadkan qofna geeriyooto gabarna geeriyooto dad fara badan ama fanaaniin fara badan ay dhaawacmaan. marka waa arrin isaga gacantiisa sabab ku noqoto waaye laakiin ma ahan arrin oo isaga kamid ah Daahir Calisow ama Shiino Cule ama dadkaas ka dambeeyeen. marka taas iyo tan wax isku mid ah ama wax isku shaqo ah ma ahan 100%. marka dad fara badan baa siyaabo fara badan uga hadlayay marka arrinta laakiin arrin sida xaqiiqada oo sida dhabta ah waa arrin isaga sabab u noqotay gacantiisa ama dadkaas dhibaatooyinkaas oo u geystay. waxaana arrintan noqonaysaa baaristeeda waqti fara badan si dadka xogaagiisa nooga dhow ama dad fara badan ay noo soo sheegeen in ay arrintan noqonayso arrin dad waqti fara badan oo qaadan doonto in baaris wanaag ama baaris weyn la sameeyo. marka waana arrin iska dareemi karto sababtay tahay qof dhan oo bini'aadan naf ku jirto ayaa naftiisa ku waayay. marka wax fudud ama wax la fududeysan karo ma ahan waa wax qof waliba dareemi karto ama qofkii dhibaatooyinkan camal ku soo dhaceen ama qofkii aqliyan waa wax oo la dareemi karo ama qof waliba arrinta tahay arrin aad iyo aad u dhibaato badan ama noqon karto arrin inay bulooyin fara badan ama sanadooyin fara badan oo ninkan uu xirnaan doono. marka wallaahi waa arrin noloshiisa kusoo biirtay waa arrin saameyn fara badan noloshiisa ku yeelan doonto. marka arrinta waxay u cadcadahay 100% inay tahay arrin si ku dhacday si kama aan ahayn sababtay tahay sida dadka sheegan si gaariga uu ku socday si xawaara badan ama gaarigaas oo si aad iyo aad u xawaaro badan ayuu ku socdaa la yiri. marka waana wax oo la dhihi karo 100% waa wax aan si kama ahayn ay u dhaceen waxaan. marka waana arki doonaa meesha ay qaybaha ama waxyaabaha soo cusboonaysiiyo insha Allah taala wayna soo socodsiin doonaa. waan hadii fadlan dan wax subtaan subscribe ka saar si aad kamid noqoto dadka nugu xiran ama dadka kumanaaka ku nugu xiran. marka ku maadsanta daawashada muuqaalkan ku leeyahay fadlan nagu cusubtaan subscribe ka saar videos ka like next video.